بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba mar kale meel kastoo aad daafaha dunida naga daawanaysaan ku soo dhawaada war wixii ina soo gaaray oo aad kala soconaysaan telefishinka caalamiga Somali Channel ee magaalada London Muqdisho Hargeysa Borama magaalada Garowe Nairobi Mandera Garissa Dadaab Buuholle Sweden Beledweyne Garowe Galkacyo Jidda Baydhabo galgaduud magaalada Cape Town dalka Netherlands. bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba mar kale meel kastoo aad daafaha dunida naga daawanaysaan kuna soo dhawaada wararkii caalamka idinkaga imanaya London xarunta dhexe ee TV-ga caalamiga ee Somali Channel. wararkana waxa soo jeedinaya anigoo Cabdullaahi Xuseen Maariya. wararka aan idin haynana waxa ugu dooron xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dawladda ku meel gaarka oo ugu baaqay hay'adaha amniga inay hakad geliyaan safarada gudoomiyaha baarlamaanku uu ku aado wadanka dibadiisa iyo odayaasha dhaqanka iyo aqoon-yahanada beel ka mid ah beelaha u dhashay Bayo Bakool oo qaadacay ka qaybgalka shirka wada tashiga ee dhawaan lagu wado inuu wajigiisa labaad lagu qabto caasimadda dawlad goboleedka Puntland ee magaalada Garowe. iyo hay'adda daryeel bulsho oo guryo 50 guri iyo waliba ceelal ah uga dhistay ku dhawaad 50 qoys oo iyagu ku tabaalaysan gudaha magaalada Muqdisho. madaxweynaha Somaliland oo maanta xilkii ka xayuubiyay taliyihii qaranka ciidanka Somaliland iyo waliba taliyihii howlgelinta ciidanka qaranka Somaliland isagoo sidoo kalena magacaabay mas'uuliyiin kale oo jagooyinkaas u magacaabay. xaflad aad iyo aad loo soo agaasimay oo ah qabashadeedu sanadkii saddexaad ayaa lagu qabtay galbeedka magaalada London. xafladaas oo la yiraahdo Somali Achievement Awards isla markaana ay soo qaban qaabisay hay'adda loo yaqaan Haya ayaa waxa sanadkan qaaday bilad sharafta Best Presenter wariye Xasan Axmed Sheekh Xasan Cabde oo isagu kamid ah wariyaasha ka howlgala TV-gan caalamiga ee Somali Channel isagoo markaas la guddoonsiiyay bilada amaba awoodiska amaba shahada sharafta inuu yahay Best Presenter of the Year soo saaraha amaba soo jeediyaha barnaamijka sanadka oo ah barnaamijka loogu magac daray dhacdooyinka ee uu soo jeediyay ee ka baxa TV-gan caalamiga ee Somali Channel. intaasi waa warkii oo kooban haatan isagoo fidsan balse inta aynan u gelin qodobadan iyo qaar kale oo xiiso leh qadar yar oo idhaha. Somali Achievement Awards oo ah sanadkii saddexaad oo lagu qabto galbeedka magaalada London isla markaana ay soo qayban qaabisay hay'adda Haya ayaa waxa sanadkan la guddoonsiiyay Best Presenter wariye Xasan Axmed Sheekh Xasan Cabde oo isagu ka howlgala TV-gan caalamiga ee Somali Channel xaruntiisa dhexe ee magaalada London. wariyaha ayaa lagu guddoonsiiyay barnaamijka loo yaqaan dhacdooyinka oo uu soo saaray isla markaana isagu yahay presenter iyadoo sanadkii hore amaba xafladii labaad ee tan ka horeysayna ay ku guuleysatay Best Program Presenter wariye Amal Kays oo iyaduna ka tirsan isla TV-gan caalamiga ee Somali Channel. haddaba xafladaas iyo sidii ay u dhacday iyo faahfaahin ku saabsan umuurahaas waxaa inoo haya wariye Amal Kays oo iyadu goobjoog ka ahayd halka ay xafladu ka dhacday. odayaal caawa farxadeedu waa farxad labaad waxaan ku guda jirnaa barnaamijkii quruxda badnaa ay u soo abaabtay Haya abaalmarinta sanadkii saddexaad ee loo yaqaan Somali Achievement Award oo maanta sharaf noo ah mar labaad inuu qaato TV-ga caalamiga Somali Channel wariyahayaga rugcadaha ee Xasan Cabde barnaamijka quruxda badan ee falaqaynta dhacdooyinka aad si fiican uga dharagteen daawata. Xasan Cabde maanta farxadda lama koobi karo ku soo dhaw aad iyo aad waa runta horta waa sanadkii labaad sanadkii hore amal ayada barnaamijka doorka haweenka oo runtii ah barnaamij muuqda runtiina telefishinka Somali Channel kamida barnaamijyada ugu qaalisan ee waliba dadka qaarkiis marka ay daawadaan haweenka maaragtay ama ilmaha laga qaato kale barnaamijka ugu dambeeyay oo runtii dadka kiciya qiiradooda oo dadka Soomaaliyeed runtii soo jiitay ee ku nool dibadda iyo gudaha waa kugu hambalyeynaya adigana aad baan ku salaamay marka waxaan doonayaa Xasan Cabde maanta bal farxadaada adoo wariye caan oo dadku wada jecel yihiin oo la og yahay TV-gana si gaar ah uga muuqda caawa waxaad qaatay awardska walaal farxadaada iyo dadku u codeeyay maxaad gaarsiinaysaa horta dadka ii codeeyay aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa runtii qofku ma ogaan karo marka uu ama kubad ciyaarayo ama uu saxaafad ku jiro ama uu heesayo ma ogaan karayo qiimaha uu ku dhex leeyahay bulshadiisa laakiin wuxuu ogaan karaa marka xaflad noocan oo kala inta la soo qaban qaabiyo dad ilaa intaasoo kun oo qofooda oo daafaha caalamka kala jooga ay ku codeeyaan runtii tan waxa ay dhiiri gelinaysaa aniga kaliya ma ahan
waxay dhiirigelinaysaa telefishinka caalamiga ee Somali Channel oo runtii ay ku dhiirigelinayso sidii uu maaragtay barnaamijyadiisa u tayeyn lahaa barnaamijka falanqaynta waa la socotaa juhdi badan baa gala dadaal badan baa gala dadka maaragtay runtii waraysiyo badan baa gala marka waxay nagu dhiirigelinaysaa in aanu markaan si laba kaclayno oo sanada cusub 2012 aanu soo bandhigno barnaamijyo dadku waxtar u ah runtii barnaamijyada runtii aan aad ka loo xiiseeyo ama ay dadku arkaan oo Somali Channel laga daawado runtii inkastoo ay dhowr yihiin haddana barnaamijka falanqaynta dhacdooyinku waa barnaamij mara maaragtay baaritaan fara badan waa barnaamij runtii sanadkan ugu dambeeyay aan dhihi karo taageerada ugu badan wuxuu ku helay barnaamijyadii aan uga sheekeynaynin dhinaca badda ha ahaato dhinaca maaragtay dadka Soomaaliyeed dhibaatooyinka haysta ahaato waxyaabo noocaas oo kale ayaa laga yaabaa inay kor u kiciyaan annaguna waxaan ku dadaali doonaa wax kasta oo ummadda Soomaaliyeed ay u arkaan oo telefishinka Somali Channelna maaragtay ku dhiirigelinaya inay barnaamijyadiisa sii wadaan wallahi horta walaaleen farxad weyn bay caaway tahay in aan soo keenay dadkii leaderka ahaa role modelkii dadkii lagu dayan lahaa dadkeena wuxuu taraayay ama hay'ad ha noqoto ama annaga hay ahaan farxad bay noo tahay runtii annaga waanu dhiirigelinaa runtii dadka laakiin de wax kale qofku wuxuu shaqaystay isagaa shaqeeyay hadduu fanaan noqdona dadka dhiirigelintiisa de waa wax la wada garanayo marka anigu dhiirigelin ayay noo tahawnee laakiin wax kaloon ku tarnaa ma jiraan aad iyo aad baan horta ugu ammaanayaa dahabshiil oo runtii gacan weyn bulshada horumarkeeda ka geysta oo waliba si furan UK iyo UK dabadiisaba annagana aad noogu soo dhaweeyay arrintan waa arrin dadkoo dhan ka farxinaysa dadkoo dhan isu keenaysa dadka af Soomaaliya ku hadloo dhan meel kasta ha ka yimaadeen waa arrin sanad walba aan doonay si hagaajino laakiin la'aantood ragga maanta qaatay dumarka maanta qaatay la'aantood ma samayn karno ra'yigooda feedbackooda nagu soo warceliyaan xagga TV-yada iyo saxaafaddu horumar weyn bay ka qaataan annaguna sanad walba waxaanu eegnaa 16 qof ama hay'adood ee dadkeena wuxuu soo kordhiyay sanad walba soo markaa sanad walba waxaan qabanaa bisha 12aad runtii dadkana wada arkaysaan waa dad aad iyo aad hariya habeen 24 hours dadka u shaqaynaya ama lacag ha bixiyeen ama TV-yada ku jireen ama heesaha qaadayaan ama waxa weeye bulshadeena aad bay sanadkan waqtigan ugu baahan tahay waayo burbur badan baa ka dhex jira qaybqaybsi badan baa ku dhex jira marka dadkana waa leaderskii waxaan jeclaynay si wadaan hawshooda iyaguna annagana nagu taageeraan sanadka dambe qabashadooda iyo waxaan aan qabanayno inay dhinac taagnaadaan aad baan ugu mahadsanyahay dhammaantood saxaafadda aad bay ugu mahadsantahay Somali Channel iyo TV-yada kale oo dhan ka qayb qaatay waana soo dhaweynaynaa waxaan leenahay aad buu mahadsantahay dhammaantiin intaasaan kaga baxaya warahmatullahi wabarakatuh aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta idinkala soo qayb galo munaasabadan haya dhammaan dadka goobta ku suganna waxaan leeyahay oo ku mahadsantihiin kasoo qaybgalkiina iyo dabcan haya oo soo qaybqaadisay wax kaloo idhaahda ma garanayo maaragtay waxaa muhiima in warbaahinta Soomaalida ay markasta xoogga saarta sidii community-ga Soomaalida looga badbaadin lahaa caqabadaha haysta qofka media-ha ku jirana markasta uu dareemo in uu matalayo dadka shacabka ah laakiin uu arko hawshaas oo hayo inuu dadka u hayo marka waan ku faraxsanahay waan uga mahadcelinayaa haya iyo dhammaan dadka qabanqaabada xafladan aad iyo aad baa mahadsantihiin وأنا أمل كيسا داوديال وحد لي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowladda ku meel gaarka ayaa ku baaqay in hay'adaha amniga Soomaaliya ay hakad geliyaan safarada uu dibadda ku tagayo gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya waa kan wariye Nimca Maxamed Bashiir oo alaabo nooga soo waranta caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho oo umurtan qaada dhigaysa kadib kulan ay Muqdisho ku yeesheen mudanayaal ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayay kaga codsadeen hay'adaha amniga ee dawladda Soomaaliya in ay hakad geliyaan safarada uu dalka dibadiisa ugu ambabaxo gudoomiyaha baarlamaanka oo xildhibaanadu sheegeen in uu ka yaalo mooshin ka dhan ah sidaas daraadeedna uusan gudoomiyuhu matali karin mudanayaasha baarlamaanka kulankan ay yeesheen xildhibaanadan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo ay albaabadu u xirnaayeen ayaa markii uu soo gabagaboobay waxa warbaahinta la hadlay xildhibaan Cali Seeko oo kamid ahaa xildhibaanadii kulanka yeeshay saa la socotaan maalmahan waxa jirtay xildhibaanada Soomaaliyeed inay mooshin ka dhana gudoomiyaha baarlamaanka ay diyaariyeen maalmaha soo socdana la rabay in la qaado mooshinkaas
guddoomiyaha baarlamaankana looga fadhiyey inuu eedayntaas ka jawaabo isagoo goobjoog ah oo waddanka jooga. waxaana soo gaartay inuu guddoomiyaha baarlamaanka saacadaha soo socda safar yahay oo bixi rabo. waxaan rabaa marka anoo xildhibaanada meeshaan ku shiray wakiilka ah aan soo jeediyo oo aan u soo jeediyo marka hore hay-adaha amniga qaranka Soomaaliyeed in ninkaas uusan bixi karin ilaa eedda u taalla uu ka baxo. go-aankaas ayaan rabaa inaan soo jeediyo. waxaan kaloo rabaa inaan ayagana u soo jeediyo ciidanka African Union ee halkan jooga iyo hay-adaha amniga labaduba inay ninkaas safarkaas ilaa uu eeddaas u taalla ka baxo ay ka joojiyaan. qodobka labaad waxaan maqlay in uu u socdo Talyaaniga. beesha caalamka oo Talyaaniga uu ka mid yahay, khaasatan Talyaaniga oo hadda la yiri uu u socdaa, waxaan u soo jeedinaynaa anagoo baarlamaankii Soomaaliyeed ninkaas Shariif Xasana mooshin baa ka yaala. mooshinka ka yaala waxaa la rabaa in maalmaha soo socda la qaado. waa inuu eeddaas u taalla ka baxo. isagoon eeddaas u taalla ka bixin oo ama inta ku guulaysto guddoomiye baarlamaan noqon ama inta guuldarraysto aan xubin baarlamaanka ka mida noqonin, eedeemihii kale u yaalla markaas kadib aa lagu qaadi doonaaye. waxaan u soo jeedinaynaa oon u sheegaynaa dowladda Talyaaniga iyo beesha caalamka inteeda kale, ninkaas Shariif Xasan kuma hadli karo afka baarlamaanka. dhowaan ayay ahayd markii mudanayaal ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo sidan oo kale kulan ugu yeeshay magaalada Muqdisho ay soo saareen mooshin ka dhan ah guddoomiyaha baarlamaanka. inkastoo guddoomiyaha baarlamaanku uusan weli ka hadlin mooshinkan ka dhanka ah ee ka soo baxay mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya. Nimca Maxamed Bashiir, Somali Channel, magaalada Muqdisho. dhanka kalena odayaasha dhaqanka iyo aqoon-yahanada beelaha u dhashay Baay iyo Bokool ayaa qaadacay isla markaana ku gacan sayray ka qaybgalka shirka wadatashiga ee dhawaan lagu wado in lagu qabto wajigiisa labaad caasimadda dowlad goboleedka Puntland ee Garowe. Cabdirasaaq Jaamac Cilmi Black ayaa umuurtan ka baaran degaya. kadib kulan ballaaran oo ay magaalada Muqdisho ku yeesheen odayaasha dhaqanka, waxgaradka, aqoon-yahanada Digil iyo Mirifle ayay waxa ay qaadaceen ka qaybgalka shirka wadatashiga ee Soomaalida ee lagu wado dhawaan in lagu qabto magaalada Garowe ee xarunta maamul goboleedka Puntland, iyagoona ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Augustino Mihinga ku eedeeyay inuu wada kala qaybinta Soomaalida dhexdeeda ah isla markaana uu dhexdhexaad ka ahayn arrimaha Soomaaliya. may cambaarayane oo diidana sida walaalkay in ku reey warka in sheegi gogol oo ka fidiye Mihinga meel la raaw Garowe odayaasha dhaqankii aqoon-yahanada sab aqya qaadacani ma ogolina mana qaad mana lagu qibgalana ma in ku digaane xildhibaanada qaranka Digil Mirifle 120 ilmaad xildhibaan idii ku qibgalo Digil Mirifle ku dhan waay ma qaadadaano man hada waayano ina go'aankan la qaadaan fadaan wala uu geekan rubna min waha gobol diglawo ma ku qibgalano shir qaramada midoobay wadin madiidinini laakiin ma diidina lama qodob diidina qodob ka wada Mihinga wala isku maamulaha Soomaaliya ul ma hada waayano diidina gobol la ftay Garowe diidina wala in diinin sababayna qoraka ka sheegay. may waha beryaalka may socday maaragtay shir Soomaalida lanqo wada la leeyay iyo rood maangle raaw ya socdi shirkaas u sugay odayaasha dhaqanka Digil iyo Mirifle ulma u diinka aqoon-yahanada haweenka Digil iyo Mirifle may aragayna ani dambaneenka jarna bil kulliyam Digil iyo Mirifle malha ku husna shirkaas malka la talan wal malku weydiin sidaas dartiye hogaanka Digil iyo Mirifle hogaanka tiyaga kan maaragtay Mihinga oo shirku ku wado may aragayna Mihinga beelo Soomaaliyeed beel kamid ah intii nagadi aan hayna lanjimada burmaan dhaay intuu roogo dhaadhaada intii hay
maylana tuulo kasta Soomaaliyeed haddii shir Soomaali halaal ee Soomaali in dhanto lagu qabadaw una madiidan ma ka qayb galaan shirki garow kulankani ay yeesheen odayaasha dhaqanka waxgaradka iyo aqoon-yahanada Digil iyo Mirifle ayay waxay dhanka kale ka soo saareen bayaan ka koobnaa baaq digniin iyo waliba cambaarayn waxaana saxaafadda u akhriyay gudoomiyaha aqoon-yahanada Digil iyo Mirifle Professor Ibrahim Muuse Heerow shirka wuxuu ku baaqayaa in la joojiyo colaadda iyo dagaalada sokeeye laguna bedelo nabad iyo xasilooni waarta digniin shirka wuxuu ka digayaa reformka qof ama koox oran karaan ma jiraan adigu waan ku tiray xildhibaan ma ihid bax adiga joog xildhibaan baa tahay mahiigana ma qori karo xildhibaan mana tiri karo xildhibaan Soomaaliyeed gudoomiyaha baarlamaanka ma qori karo mana tiri karo xildhibaan beeshiisa ayuu ku feelayaa haddii la gaaro reformka beel kasta waxay xaq u leedahay in ay soo xulato dadkeeda iyadoo beelna aan u afduubnayn shakhsi qofkii ay isku soo raacdo beesha unbaa noqonaya xildhibaanka cambaareen shirka wuxuu cambaaraynayaa road mapka oo uu garwadeenka ka yahay mahiiga ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya shirka wuxuu ku tilmaamay wrong map waa talaabo dhinaca qaldan loo qaaday kulankani ayaa waxa uu qayb ka yahay kulamo in dhawaanahaniba ay yeelanayeen qaybaha kala duwan ee odayaasha dhaqanka Soomaalida ka oo aragtiyo kala duwan ay ka muujinayeen kulamada wada tagshiga ee qaramada midoobay ee ka wada gudaha Soomaaliya Cabdirasaaq Jaamic Cilmi Balaag Somali Channel magaalada Muqdisho dhanka kalena madaxweynaha Somaliland ayaa maanta xilkii ka qaaday taliyaha qaranka ciidanka Somaliland iyo waliba taliyaha howlgelinta ciidanka qaranka Somaliland isaga oo magacaabay mas'uuliyiin kale wakan wariye Maxamed Faarax Omaade oo alaabo nooga soo warama caasimada Somaliland ee magaalada Hargeysa oo umurtan eegaya war-saxaafadeed maanta ka soo baxay qasriga madaxtooyada ee Jamhuuriyadda Somaliland oo uu ku saxiixan yahay afhayeenka madaxtooyada Cabdilaahi Maxamed Daahir Cukuse ayaa lagu sheegay in madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo waxa uu maanta digreeto madaxweyne xilalkii kaga qaaday taliyihii hore ee ciidanka qaranka Somaliland iyo hoggaanka howlgelinta ciidanka qaranka isla markaana waxa uu madaxweynuhu xilalka u magacaabay taliye cusub iyo hoggaan cusub madaxweynuhu markuu arkay qodobka 9aad ee dastuurka Jamhuuriyadda Somaliland markuu arkay in baahi loo qabo in dardar la geliyo howlaha ciidanka qaranka markuu tixgeliyay la tashiga madaxda ay arintaasi khusayso markuu arkay in aanu hanaan karin xilalkii loo magacaabay waxa uu madaxweynuhu go'aansaday inuu xilalkii ka qaado taliyihii hore ee ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Somaliland Nuux Ismaaciil Taani iyo hoggaanka howlgelinta ciidanka qaranka Somaliland Xasan Cabdi Yuusuf Xasan Kayse waxa uu mahadnaqay madaxweynuhu mas'uuliyiintaasi muddadii ay xilalka u soo hayeen hawshii ay qaranka u soo qabteen sidoo kale madaxweynuhu isaga oo sunnaha dawladnimo fulinaya waxa uu magacaabay taliyaha cusub ee ciidanka qaranka Somaliland oo laga bilaabo maanta noqonaya Maxamed Xasan Cabdilaahi Jirif sidaas lamida waxa uu madaxweynuhu xilka ka qaaday hoggaanka howlgelinta ee ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland Xasan Cabdi Yuusuf Xasan Kayse waxaana uu magacaabay hoggaanka howlgelinta ee ciidanka qaranka Maxamed Aadan Saqadhi Dabagale madaxweynuhu waxa uu digreetadan ku amray wasiirka gaashaandhigga iyo la taliyaha arrimaha gaashaandhigga ee madaxweynuhu inay saraakiisha xilalka ugu kala wareejiyaan sida ugu dhaqsaha badan Maxamed Faarax Omaade telefishinka caalamiga Somali Channel Hargeysa jaamacadda Maakhir oo mar labaad dadweynaha ku dhaqan xarunta gobolka Sanaag iyo ee magaalada Badhan ay ka qayb qaateen dhismaheeda laguna dhisay iska wuxuu qabso ayaa dhawaan la soo gabagabay waa kan wariye Cabdirasaaq Balbal oo nooga soo warama gobolka Sanaag magaalada ku taale Laydhaa Badhan oo umurtaas ka faaloonaya maanta waa maalintii labaad ee dadweynaha reer Balmood si hagar la'aan ugu soo kalnahaan siday u hirgelin lahaayeen dhismaha Maakhir University waxa saaka markay ahayd qorraxdu sida muuqaalka idinka muuqata xilliguna uu ahaa aroornimo saacaduna ay ahayd 5 ayaa dadweynaha ku dhaqan gobolka Sanaag gaar ahaan magaalada Badhan soo kalaheen oo wadin kacdoonkii horumarka ahaa
waxaana jimcihii hore lasoo dhaafay la dhisay dhismaha hadda idiin muuqda waana la bilaabay haddaba dadkii waday kacdoonka horumarka ah ayaa waxay ahaayeen dhammaan qaybaha bulshada kala duwan sida ardayda hooyooyinka macalimiinta ururada haweenka ururada dhalinyarada iyo madaxda gobolka suldaanka guud ee reer maakhir oo isagu markay saacadu ahayd 7 aroornimo ka yimid dhanka iyo magaalada Hadaftimo oo ah saldhigga suldaanka guud ee reer maakhir suldaan Saciid suldaan Cabdisaan oo hawsha kormeeriyay dhiirina gelinayay dadweynaha ayaa isagu dhex mariyay kana qayb qaadanayay dhismaha jaamacadda maakhir ismuhu uu soconaya laga bilaabo 6 aroornimo ilaa 11 duhurnimo markii ay hawshu soconaysay ayaan ka qaadnay cod qaar ka mid ah gudiyada qabanqaabada uu ka mid yahay Awshe Maxamuud Jaamac Badle wuxuuna yiri marka hore waxaan mahad ballaaran aan la soo koobi karin u jeedinayaa shacabweynaha reer Barmeed noociisa ugu jiraanba rag iyo dumarba dhammaan sida hagar la'aanta ay uga soo qayb galeen dhismaha jaamacadda maakhir oo aanay u kala harin iyagoo midaysan isku duuban talabaad waxaa mahad gaar iska leh oo bogaadin iska leh ardada iskuullada sida sekondariga Siinaay dugsiga Alfurqaan dugsiga Alnuur oo iyagoo isku duuban shaqadooda si hagar la'aana uga baxay una dhamaystirtay una wada u heegan iyagoo isku duuban ardaas oo raba mustaqbalkooda iyo future-kooda sugaya jaamacadda waxaan marka kale mahadnaq u soo jeedinayaa TV-ga Somali Channel oo si hagar la'aana mar walba heegan ugu ah goobta jaamacadda oo haddana aynu ku sugannahay gaar ahaan wariyaha khaaska u ah agaasimaha xafiiska Barmeed Mr. Cabdisaaq Cali Balbal oo si hagar la'aana u duubaya uuna heegan haya habeen ilaa saaqa 5 subaxnimo iyo maanka Saciid Tiij waxaan kaloo iyana u soo galin jeedinaya jaaliyada dibadda ee u maqan madaqada reer maakhir ama shacabka reer maakhir waa la aragtaan wixii dadka gudaha wixii aan qabsanay iyo sida ay u socoto welina waan si waxin maanta waa aragtaan halkan waxa socota maalintii labaad oo jaamacadda maakhir oo ay reer Barmeed ku qaadeen olole dhisme oo iskooda waa ilaahay mahadii maanta hadii mar dadka reer Barmeed ama reer Sanaag ay ogaadeen ayna heleen isku kalsooni dadweynaha ka hadlay ayaa aad u fara badnaa oo madasha ku sugnaa waxaana dhammaantood ka qaadnay aragtida saaka ay u arkaan dhismaha oo sidan u hirgalay weyn dhammaan dadkaasi waxay muujiyeen taageero inkastoo aan halka lagu soo koobi karin aragtida dadka hase ahaatee bahda saxaafadda Somali Channel ayaa barnaamij ka diyaarinaysa dheer oo dhammaan laga soo gudbin doono muuqaaladaas dhismuhu uu soconayay inkastoo dumarku ay markii ay dadku shaqeynayeen keeneen goobta dhismaha cunooyin fara badan maayar ku-xigeenka magaalada Baran ahna gudoomiye ku-xigeenka golaha deegaanka Baran Seenam Cabdi Aar ayaa iyaduna ku sugnayd madasha waxayna la hadashay jaamacadda Maakhir University taasoo ka soconayo halkan aad u fara badan oo maxay ahaydey la sugayay udud iyo maxay ahaydey maskax iyo muruq la sugayay waana dhasayo madaqada qabadadeeda ugu muhiimsan ku jiro ka gol ahaan annagu wixii kasta oo maxay horumar ah oo wadanka loo qabanayo waxaan nahay waan taageerana waan garab taaganahay maadaama aanu nahay dadkii ka yimid shacabka dhexdiisa oo shacabku soo doortay wax gaar ah kama yeelan karo muuqaalka ka dhacay goobta ayaan ahayn mid intan lagu soo koobi karo qaar ka mid ah abwaaniinta ayaa iyagu dadka dhiiri gelinayay shacabweynaha ka shaqeynayay ugu dambeyntiina dadweynaha ayaa la hadlay saxaafadda markii ay dhammaatay hawshu waxaana ugu horreyntii ka hadlay madasha Axmed Nuur Madoobe oo isagu aqoon-yahan u dhashay deegaanka Maakhir oo isagu hadda ka soo qalin jabiyay jaamacado ku yaala dalka Hindiya iyo Malaysia waxaana hadalkiisii ka mid ahaa Soomaaliya ama adduunka oo dhan marka la eego maanta guud ahaan waxay ugu liidataa Afrika waxay ugu liidataa Soomaaliyana waxay ugu liidataa gobolka la dhaho Sanaag magaalada Baran la yiraahdo waxaana sidaas sababay lacageynaan haysan maaha hanteynaan haysan maaha dad aynaan haysan maaha waxa weeye doqonnimo halka ay dhigtay waxayna dhigaynaa asaga dharka weynay waxa dadku wax ka samaystaan waxa weeye ciidda iyo biyana waa haysanaa bal darbiga ayaga ma Mareykan baa lacagta la inaga soo diray maya ciidda ma Mareykan ma inoo keenay ma haysto ciid Mareykanku warba kama haysan dalka aanu ka imi biyo iyo ciid midna ma haysto Malaysia iyo India ka daran Australia ciidda iyada la geeyaa
sidoo kale waxaa madasha ka hadlay madaxweynaha dowladda maakhir oo isagoo aada u dhiirigeliyay shacabweynihii ugana warramay in xoogga dadka oo laga faa'iidaysto uu yahay wax qaali ah halka saaka la yimi saacaddu markay ahayd 5 ilaa iyo haddana ay tahay 11 muuqaalka intaa la eg u dhismayna ay tahay faa'iido weyn ugu dambaystiina waxaa buraanbar aada loola dhacay ka akhriday goobta xawo maxamed xujaale gurtidii reer sanaag baa guddoonkan galay isimkii baa noo guddoonshoonna garab fadhiya ma kala gogoyne gacal wada socdaanu nahay dhammaan gabdho iyo reer gurmad baanu taagannahay inaan jaamacad hirgelinaanu heeganahay jaamacadda maakhir dhismaheedu wuu soconayaa sida ay noo sheegeen qabanqaabiyaasha dhismaha jaamacadda maakhir cabdirasaaq cali damben telefishinka caalamiga Somali Channel magaalada Baran xaflad daahfurka ururka loo yaqaan NDP ee ururka nabad iyo dimuqraadiga iyo barwaaqado kamid ah urur siyaasadeed looga dhawaaqay Somaliland ayaa lagu qabtay galbeedka magaalada London ee wadanka Britain xafladan ayaa waxa ka soo qayb galay garaado salaadiin iyo uqaaliya aqoon-yahano aad iyo aad u fara badan oo isaga yimid daafaha wadanka Britain xafladan ayaa waxa gudoomiye ka ahayd amaba ururkan ayaa waxa gudoomiye ka ah Fawziya Yusuf Xaji Aadan oo iyadu kamid ah aqoon-yahanada amaba indheer garadka ugu caansan diasporaha Soomaalida ee ku dhaqan wadanka Britain kala socotay aanu daafurnay si official ah xisbiga quruxda badan ee NDP oo ay hogaaminayso Professor Fawziya Yusuf Xaji Aadan oo runtii macruufka ah Soomaaliya iyo Somaliland xisbigaas oo u taagan nabadda dimuqraadiyadda iyo barwaaqo waxaan leenahay hambalyo waanu garab taagna xisbigaas runtii asaasiyaasha ka mid ahay waxaana runtii soo jiidatay waxyaalaha ugu taagay xisbigan oo ah runtii waxyaala aada iyo aada nolosha bini aadamka qiimo weyn ugu fadhiya kow waa nabadda nabigeena calayhi salaatu wasalaam markii uu ugu ducaysan jiray اللهم نسألك الأمن والإيمان وحاولي هدان أمن جن أنا نبتجي إيمان نبتجو إسلامي نبتجو مركا إن وداس عن هاي سنوات كاسرو إن نسيا كيسنو مولو بدك كانو هدي أيوة كنتار كنت ورا ورقة الأولى نحسن أو هذاك يدين الإسلام كوز الإسلام كم دين تام حسنو النبي عليه الصلاة والسلام الوصول فيه لكن كيف الوصول يسيها بقول كي بقول ولا هذا محل ويسمعان وحنا كيو يبوت يقول سطر الويدين الإسلام إلى هناك رواه الحمد لله رب العالمين قال الله سبحانه وتعالى أن ما تسكله عليه ما ترك نسوكم كنا يا مال وين أنا شو كنت ممكن الله عن مهر جار شو والله إذا ما ترك نسوق بين المناسبة كنت بدي سوق marka saddexaad waxaan mahad soo jeedinayaa xilliga duurba yani munaasabada maanta runtii lagu wanqalay ururka NDP oo ah ururada yani Soomaaliland maanta filaya inuu wax ka noqdo suuqa qabiil maanta halkan suuqan keenay aad iyo aad u mahadsan yihiin waxaan soo runtii aan ugu mahadnaqayaa soo dhaweeyaa barnaamij kana aad baan mahadsan tahay fanaanada caanka ah Maryam Musaafirti ومن أبدا نجح الصور يعني فنانين تسدع الشيخ توادت كلوب بهاي يوم قبيلة كمان السنة قبل ما هذا حسن مرة لكن سي حبل يقول ضدك في عالم موضوع قوري بمر بتغيير يعني ما كنت عاد بان نفرح على يعني حولها على هساك أكود دي أو قبل بعدين وحاول نسوتي واحد ومكان سمع لا كسبتي وياه كذا لكن شيء ربتي يعني سمو وياكم وحوية مرة وحي كرف تاجي وحي الموضوع هو قبنا أنه كل أمر سياسي من ربتي بصراحة لكن سوي الموضوع برشلونة هو قبنا وحسوا كلنا يقرب قدر تاجي هاي وانا كنت تاجي لا قرحان سوي والله يعني إن أنا هكذا كسر شيء محاكمة NDP inuu xisbigan uu soo taago oo door ka soo galo waxa keenay cadaaladii dalka oo mugdi gashay taas aan ugu kaliftay in ururkan la dhiso waxa keenay qabyaalad iyo dadka la takooro
oo laga badan yahay oo la haybsooco taa laftigeedu waxaa keentay in maaragtay ururkan ka dhiidiyo oo aan cidna la haybsoocin oo sinaan qof walbaaba loo siman yahay shaqo urur siyaasadeed ka mid ah urur siyaasadeedyada loogaga dhawaaqay Somaliland ayaa maanta looga dhawaaqay maba laga hirgeliyay isagoo xafiiskiisii koobaad ka furtay caasimadda Hargeysa ee Somaliland ururkan oo lagu magacaabo Nasiye waa kan mar kale wariye Maxamed Faarax Xasan Omaade oo nooga soo warramo Hargeysa oo umuurtaas la faguraya gudoomiyaha urur siyaasadeedka Nasiye oo ay weheliyaan mas'uuliyiinta iyo aasaasayaasha ururka ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Gabiley ee xarunta gobolka Gabiley halkaasi oo ay kaga hor yimaadeen meel magaalada ka baxsan boqolaal dadweyne ah oo kamid ah taageerayaasha ururkaasi kuwaasi oo ruuxayay astaanta ururka iyo caleemo qoyan iyadoo loo galbiyay madaxdii iyo waftigii ballaarnaa ee ururka siyaasadeedka Nasiye xafiiska ururka oo isla maanta uu gudoomiyuhu halkaasi xariga kaga jaray xariga tirida kadib waxa halkaasi hadallo ku aadan dareenkooda ka soo jeediyay cuqaasha iyo waxgaradka gobolka Gabiley kuwaasi oo sheegay sida ay ugu faraxsan yihiin in maanta ay soo gaaraan magaalada Gabiley madaxda urur siyaasadeedka Nasiye oo kamid ah ururada dhawaan laga dhawaaqay Somaliland waxaan ku soo dhaweynaynaa halka si fiiran gacmo furan iyo qalbi faraxsan ururka Nasiye gudoomiyihiisa iyo dhammaan ururka waxaanu leenahay ku soo dhawow magaalada Gabiley gobolka Gabiley gaar ahaan degmada Gabiley si qurux badan gacmo furan iyo qalbi faraxsan waanu soo dhaweynaynaa waxaanu leenahay insha Allah ka mid noqo xisbiyada soo baxa ee ku jira tartanka Somaliland inaad noqoto saddexda xusbi ee soo hadha mid ka mid ah ayaanu ilaahay ku baryaynaa أحمد محمد عمر وعلاناي قدومي كسور دمو وقبل كانوا لغتاي وقبل كاغي كسور دمو قدومي كسور دمو وعلاناي أيها كعين فربضوا كسور دويننا لا أيها وعن كبرينا إلى المغوطة hormuudka berritooda lagu soo hirto ee Somaliland waxaa isna halkaasi hadal ka soo jeediyay gudoomiyaha ururka Nasiye mudane Axmed Maxamed Cumar Axmed Talyaani oo ku dheeraaday sida uu ugu faraxsan yahay soo dhaweyntan taageerayaasha ururkoodu ay ku soo dhaweeyeen gobolka Gabiley waxaana gudoomiyuhu sidoo kale uu xusay in ay urur ahaan buuxiyeen shuruudihii looga baahnaa ururkooda loona diiwaangeliyay oo ay diiwaangeliyeen guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda waxaana isagoo arrimahaasi ka hadlaya hadalladiisii ka mid ahaa maanta sida fiican loogu soo dhaweeyey gobolkan Gabiley gaar ahaan caasimadiisa Gabiley waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh soo dhaweeyo aniga iyo waftiga iyo ururkaygaba marxalad weyn bay ii tahay maanta dhalinyarta iyo aqoon-yahanada ku bahoobay ururkan oo dhammaantood ka soo kala jeeda gobollada jamhuuriyadda Somaliland inta ay ka kooban tahay ayaa waxa uu mabaadi'diisu tahay in uu wax weyn ka bedelo qaabkii ay ururadii iyo xisbiyadii hore ku salaysnaayeen iyo nolosha dadka bulshada reer Somaliland heerarkeeda iyo noocyada kala duwan waxaan jecelahay inaan fursaddan mar kale idiin sheego ururkani inuu yahay ururkii saddexaad ee dhammaystira dhammaan diiwaangelintii looga baahnaa shuruudihii qaranka sidaan hore u sheegay waxaan jecelahay inaan marar dambe isu soo noqonno oo aynu marar badan wada hadalno oo aynu ururka iyo dhismihiisa ka wada hadalno laakiin waxaan leeyahay waxaan idinka baahannahay taageeradiinna isla kaya aad taagtaan oo hiil iyo hooba noo hagar baxdaan waa markii ugu horeysay ee ururka Nasiye uu si rasmi ah uga furto xafiis xarunta gobolka Gabiley ee magaalada Gabiley Maxamed Faarax Omaade telefishinka caalamiga ee Somali Channel Hargeysa dhanka kalena salaadiintii aqoon-yahanadii iyo culimo diinta Boorama ayaa maanta ka qayb galay
hotel casri oo laga furayay bartamaha caasimada gobolka awdal ee magaalada Boorama. Cabdifitaax Maxamed Aam ayaa mar kale umurtan ka faalloonaya. magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal waxaa maanta laga furay hotel casri ah oo ku yaala bartamaha magaalada Boorama. hotelkan waxaa loogu magac daray Galad Hotel, waxaana hotelkan xariga ka jaray Suldaan Abubakar Cilmi Wabar, wuxuuna u duceeyay hotelkan. ilaahay ugu rajaynayna qoyska dhisay hotelkan inay insha Allah dhisaan kuwa kale oo badan ay dhisaan oo kan ka sii qurux badan كما إن شاء الله مجددي لقنا هذا قاعد وإن شاء الله نكبر وإن الله يكرر جيدنا. waxaana munaasabadii lagu furayay ka soo qayb galay salaadiin wax garad aqoon-yahano haween iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Boorama. madashan waxaa ka hadlay mas'uuliyiin kala duwan kuwaasoo marka la isku soo aruuriyo hadaladooda ay ku soo biyashubanayeen horumarka uu hotelkan ku soo kordhiyay magaalada Boorama, waxayna hoosta ka xariiqeen inuu hotelkan Galad uu yahay hotel casri ah lana jaan qaadi kara caalamka horumaray. waxaana qaarkood hadaladooda kamid ahaa marka inay marti badani muxuu ahay magaalada timaado martidaasina waxay u baahan yihiin meel ay degaan oo ay seexdaan oo ay ku nastaan bay u baahan yihiin. marka taasina iyadna marka baahidii kale markaasi muxuu ahay accommodationkii ama moogtahay guriyeyntii ayay markaasi buuxinaysaa. imika waxa ubaana magaaladu moogtay markii serviceskan uu yar kordhay muxuu ahay waxbarashadiina ay korodhay caafimaadkiina loo yimaado imika xitaa guri la kiraysta waa laga leeyahay magaalada. taasaa muxuu ahay wad jirtaa. marka waxbaynu baahi baynu buuxinaynaa. hadda jeerna businessku wuxuu ka turjumaa inuu baahi jirta inuu buuxiyo. ana fiican oo dad ku nasto oo martida waaweyn ee waddanka imanaysaana ay u hogato. magaalada Boorama waxaa soo martay iyada oo dadka martida yimaada yani meel la geeyo oo ay u hoydaan oo ku habboon aan loo helin. hotelkani waxaa filayaa inuu ku laban yahay hotelka Rays. maarataanay hotelada magaalada u badan ay yihiin yani qol yar oo dhow qof intay seexdaan baytilmeed iyo tuushashana kuyuu loo qabo ayaa ay naga furtaan hoteladaas. xaqiiqdii waxa weeyaan horumar weyn weeyaan. waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa reerkii yani maarataanay dhisay. waxaan leenahay ilaahay arsaaq fiican oo xalaalo oo wanaagsan Allah ka siiyo. sharafta badan leh halkan way nooga dhisana aad baan kada ilaahay caalamku marka yani magaalooyinka la soo galo meelaha la eego waxaa ka mid a layidhi masaajidada dariiqyada dhiskan oo kale iyaa ka mid a halkaasaa laga heshaa meeliba siday tahay halkaasaa laga gartaa baa layidhi. waa muraayadii layska daawanayay kan oo kale waa muraayadii layska daawanayay. waxaan leenahay saaxiibada kale baac mushtariga ama jaadlaha noqda ama sigaar ha iibiyo ama bacaha iibiye iyaguna kuwa la mid ah ay noo dhisaan insha allahu tacaala oo aynu ku kala baaro. si kastaba haatee hotelkan Galad ee maanta laga furay bartamaha magaalada Boorama ayaa waxa uu noqon doonaa mid horumar weyn ku soo kordhiya goboladan Awdal iyo Salal. Cabdifitaax Axmed, Somali Channel, magaalada Boorama. kulan ballaaran oo looga hadlayay tacadiyada lagula kaco haweenka oo muddo 15 maalmood ka soconaya caasimada gobolka Togdheer ee magaalada Burco ayaa maanta la soo gabagabeeyay. wariye Maxamed Cawad Maxamed oo alaabo nooga soo warama gobolka Togdheer caasimadiisa magaalada Burco ayaa umurtan ka faalloonaya. kulan ballaaran oo lagu soo afmeerayay olole lagula dagaalamayay tacadiyada lagula kaca haweenka oo ka soconaya gobolka Togdheer muddo 16 maalmood ayaa maanta lagu soo gabagabeeyay hotel Barwaaqo ee magaalada Burco, kaasi oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda shaqada shaqaalaha iyo arrimaha bulshada ee gobolka Togdheer. waxaana kulankani ka soo qayb galay mas'uuliyiinta maamulka gobolka Togdheer, laamaha dawladda ee heer gobol, saraakiisha ciidamada booliska iyo asluubta hay'adaha wadaniga ee ka howlgala gobolkani Togdheer iyo marti sharaf kale oo badan. waxaana ugu horeynba kulankani ka hadlay isuduwaha wasaaradda shaqada shaqaalaha iyo arrimaha bulshada ee gobolka Togdheer Ismaaciil Axmed Xayir. waxaanu sheegay in kulankan uu yahay mid lagu soo gunaanadayo oo la socday muddo 16 casho oo lagula dagaalamayay tacadiyada ka dhanka ah haweenka sidii wax looga qaban lahaa. soconayay oo ku saabsan olole 16 casho soconayo ku saabsan sidii loo joojin lahaa tacadiyada lagu sameeyo dumarada. okay 16 casho waxa soconayay 16 casho oo olole lagu jiray activities badan baa la sameeyay. hadday tahay carruurta child protection, hadday FGM tahay, haddii ay tahay ma garanaysaa tacadiyada kale ee loo geysto dumarka,
waxaasoo dhan baa laga shaqaynayay marka maanta ayaa lagu gunaanadayaa 10 Disembar ayaa la isugu soo xooriyaa oo xaflad loo sameeyaa lagu soo gunaanado waxyaalaha ma garanaysaa 16 casho la soo qabtay gudoomiyaha gobolka Togdheer Yaasiin Maxamed Cabdi oo isaguna kulankani ka hadlay ayaa ayaan darro ku tilmaamay in tacadiyada lagula kaco haweenka ay bulshadu si fudud ku xaliso balse waxa uu sheegay in loo baahan yahay in dadka dambiyada xadgudubka ku ah dumarka galaal la horkeeno maxkamadda isla markaana shareecada lagu xukumo waxaanu ugu baaqay in hay'adaha wadaniga iyo shacbiguba ay arrintani si wada jir ah uga howlgalaan sidii loo meel marin lahaa hay'adaha ama jooyada wadaniga inay ka howlgalaan وعجال لك سبعين أنا أقول أنا تقول أروح إن قاضي كقاضي إن خرج كقاضي يعني أنا ودرسنا وحياة هذه يقول تعقليان تط نبل وذقاتي ومتشي وكل ما تدق عليه وعليها وتصل وعجلوا بهم تصل وعجلوا بهم إن لقوا وعجلوا ضد كنا يحقاشنا يحقلت كنا قبل المف كتشواب يودل من قفل وجس كم تشواب كرو إلى هذا حسابها أنا أقول لنا كحري ما يسوى دل مجدنا وياه madaxa hay'adda CCPRS ee gobolka Togdheer Cabdisalaan Maxamuud Ducaale ilka cabse iyo saraakiil kale oo iyaguna ka socotay hay'adaha wadaniga ayaa soo dhaweeyay barnaamijkan lagula dagaalamayo tacadiga lagula kaco haweenka isla markaana xusay in loo baahan yahay in bulshada ay ka wada qayb qaadato sidii arrimahani soo noqnoqonayo loo suulin lahaa waxa kale oo iyaguna kulankani ka hadlay agaasimaha waaxda qoyska ee wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ee gobolka Togdheer Caashe Cali Qabile taliyaasha ciidamada booliska iyo asluubta ee gobolka Togdheer isduwaha wasaaradda diinta iyo awqaafta ee gobolka Togdheer Kaysa Xaaji Diiriye madaxa ururka haweenka qaranka Noow Hinda Jaamac iyo marti sharaf kale oo badan dhammaantoodna waxay ku dheeraadeen sida ay muhiimka u tahay xilligani wax ka qabashada tacadiyada lagula kaco haweenka kuwaas oo muddooyinkii ugu dambeeyay noqday kuwa xadaafa ugu dambeyntiina kulankani lagaga hadlayay tacadiyada iyo xadgudubyada lagula kaco haweenka ee lagu soo gabagabeynayay barnaamijkani socday 16 maalmood ee lagula dagaalamayay arrimahani ayaa isagu wax weyn ka tari doona tacadiyada iyo xadgudubyada loo geysto haweenweynaha ku dhaqan gobolka Togdheer maxamed Caawad Maxamed telefishinka caalamiga ee Somali Channel Burco dhanka kalena madrasada al-Imaam oo kamid ah iskuulada islaamiga ay caruurtu wax ku bartaan oo ku taala magaalada Nairobi ee wadanka Kenya ayaa maanta loo qabtay xaflad xiritaan ah fasaxa madrasada al-Iman waa kan wariye Faysal Xaseer Maxamed oo nooga soo warrama caasimada wadanka Kenya ee magaalada Nairobi oo umurtaas eegaya وهي شهادتان وعدة الإيمان وصوم وصلاة وحج والزكاة xafladan oo ahayd masiir sare loo soo agaasimay waa ka soo qayb galeen culimo u diin waalidiinta dhalay carruurta dhigata madrasada al-Iman ayaa waxa ay ku saabsaneyd xiritaanka sanadisiyeedka 2011ka waxa goobta lagu guddoonsiiyay ardada natiijada imtixaanka iyagoo ay gowjoog ka ahaayeen waalidiintooda ugu horeen ayaa waxa xafladda daafuray Cabdinuur Saalax Cali oo ah maamulaha madrasada al-Iman inta kadib waxaan u mahadcelinaynaa macallimiintii iyo maamulkii iskuulka haddaan nahay waalidiinta sharafta leh waqtigoodii soo huray soo dadaalay ee dul qaatay waxaan kala mahadcelinayaa culimada iyo marti sharafka barnaamijka nagala soo qayb galay waxaan kala mahadcelinayaa TV-ga Somali Channel oo ah TV inta badan barnaamijta waxbarashada iyo horumarinta qayb ka qaata dadkana u soo gudbiya waxaan kala mahadcelinayaa ardayda al-Iman School oo ayaguna sanad dadaal badan soo bixiyay sanadkan sanad aad u culusna uu u dhamaaday sidoo kale macallimiinta oo dhan ayaan u mahadcelinayaa inta kadib wixii aan oran lahaay oo dhan hortay ayaa la yiri waqtiguna waa daahay ayaad moodaa waxa uu ku soo gabagabeynayaa sida aan wada garanayno madrasada sanad baa u soo dhamaaday sanad daal badan oo waalidiinta iyo macallimiinta iyo ardaduba ay wada shaqaynayeen ayuu ahaa Allah subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryaynaa wixii aan sanadka qabanay inuu guul noogu khatimo ajarna naga siiyo sanadaha soo socdana rabbi subhanahu wa ta'ala inuu garabkeena ahaado caqabad fara badan oo mar walba iskuulka ka hor yimaada fadliga Allah subhanahu wa ta'ala kadib ayaa waalidiinta ayaa qayb ka ah guusha iyo horumarka uu iskuulku mar walba uu gaarayo waa kuwan qaar ka mid ah culumudiinkii waalidiintii madasha ka hadlay uga mahadceliyay maamulka madrasada al-Iman sida ay ugu soo dadaaleen carruurta
madarasada aliimaan iyo macallimiinteeda kala duwan iyo dadaalka ay ku bixiyeen xaqligan tacliimiga ah iyo tarbiyadan iyo waxbarashada tan waxaan kaloo mahad celinayaa waalidiinta laftigoodu soo ajiibay in mashruucan uu hirgalo oo ilmahooda keenay waxaan rabaa wax yar inaan idiin ifiyo tarbiyadu saddex geesood weeye saddex qaybood oo asaasi ah bay tarbiyadu leedahay qaybta koowaad ee tarbiyada waxa weeye waa guriga oo asaas ay u yihiin labada waalidka ah iyo ilmuhu cidda uu la nool yahay oo guriga haddii marka gurigu uusan hagaagsanayn oo tarbiyo wanaagsan iyo tacliin iyo akhlaaq iyo dadaal unu ka jirinin ilmahaasi waxa weeye akhlaaqdiisii iyo waxbarashadiisii wax weyn baa ka lumaya ilmuhu ficil ahaan wuxuu kaaga arko baa ka weyn waxa aad u sheegayso afka uga sheegaysid sidaa darteed yacni qudwa saalixa waa lagama maarmaan iyo gurigii inuu yahay guri maaragtay u habboon madarasa wanaagsan oo ilmihii ay ka soo baxayaan hooyadii inay xijaabkii iyo asturkii ilaaliso salaadii guriga in looga dadaalo akhlaaqdii wanaagsanayd laa shaka canuga isaga oo meeshaa ku barbaaray khayr badan baa loo rajaynayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaa biasmaa'i lxusna wasfaati alculaa inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala na ilaaliyo. When you are at home, the child is yours. When in school, the child is mine. Therefore, we cannot do something bad to the child, but we want to model the child in the form which this child, the education will help in future. TV-yada guryaha idin yaala idinka iyo ilmahaba waxaad daawanaysaa fiirsada ilmo yaroo dugsiga yimi dugsi quraar aan jooga yimi baa waxaan yidhi waree xal dhan maxaa ku soo jeeday suuyo aniga hooyaa filin isla daawanaynay ilmaha markii hooyadiis iyo asaga 7 saac hameena filinka isla gaareen muxuu baran maamadu goormay wax u sheegin waagii hore kuwa qaar luqadaha aqoon waxay dhageystaan maba haysane waxa deer waxa la keenay in lagu turjumo luqadda Soomaaliga oo dhan wax alla wixii filimaan xun iyo jinnijaankii iyo wixii oo marka dhaqankii gaalada inta la soo guuriyay dhaqanka anagana loo soo guuriyay qof walba waa muhiim guriga waa muhiim waxa gurigaaga ka socda inaad la socotid adiga iyo ilmahaagana marka saasaad ku badbaadi kartaan war mahadsantiin waxaan u maleynayaa waxaa la isugu yimid ardadii oo imtixaankii laga qaaday oo sanadka ahaa oo u xirmahayo waxaa waalidiinta loogu yeeray kolleyba haddee inay la socdaan ilmahooda natiijadoodii laba tuso siday wax u barteen waad arkaysaan waxaa nala soo bandhigay luuqadihii la barahaya caruurta iyagoo ama ku heesahaya ama ku muxuu ahay muxaadaraynahaya il fiican baa ka muuqatay halkaas macallimiinta waxaan u celinaynaa mahad weyn. Faysal Caseer, Somali Channel, Nairobi. dhowaan ayay ahayd markii lagu dilay Puntland allah u naxariistay Dr. Sheekh Axmed Xaaji Cabdiraxmaan oo kamid ahaa mutacalimiinta ama aqoon-yahanada iyo mashaayikhda ugu waaweyn wadanka Soomaaliya kulan ballaaran oo looga tacsiyeynayay ummadda Soomaaliyeed geeridii marxuumka ku timid iyo eheladiisa ayaa lagu qabtay masjidka Daarul Islaam ee magaalada London. Umar Sheekh Aadan ayaa umuurtan eegaya. kulan ballaaran oo lagu tacsiyeynayay Dr. Sheekh Axmed Xaaji Cabdiraxmaan ayaa lagu qabtay masaajidka Daarusalaam ee magaalada London. waxaa kaloo isla kulankaas lagu gorfeeyay kaalinta culumaa diinka uga aadan xaaladda qalafsan oo uu dalka Soomaaliya ku sugan yahay waqtigan xaadirka ah. kulankiina wuxuu u dhacay sida aad arki doontaan. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد ولا ليال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل كان عاو واحد سقوي يميد دعادي علومدي متليسي UK مراكز تيدا سومالي أي لا هاي أو كي يميد مقالوين بدن أو كلا قديسان أو أي كميتها لندن بريستول برمنغهام ليستر يميركل أو بدن dhammaantiin waa idin soo dhaweynayaa waana ku mahadsantihiin kasoo qaybgalka kulankan hadafka kulankan aan culimmadu isugu yimaadeen halkan waxa uu ahaa inay culimmadu ay wax iska yiraahdaan axdaafta maaragtay dhulkeeni ka dhacaysa iyo dilkii fadiilatu Sheekh Axmed Xaaji Cabdiraxmaan Dr. Axmed Xaaji Cabdiraxmaan rahimahullah oo ahaa caalim kamid ah culimmada Soomaaliyeed ee caanka ah. maanta waxaan ku soo dhaweynaynaa walaalahanaga martida noo ah ka yimid gobolada iyo London ka kala yimid masjidka Daarusalaam waxaan ku soo dhaweynaynaa iyagoo
ka tacsiin ama ka tiiraansan ama ka xun walaalkeen doctor axmed ama doctor sheekh axmed raxmaan doctor axmed xaaji cabdiraxmaan xis oo ogtihiin in lagu dilay maalmihii la soo dhaafay magaalada boosaaso taas inagoo caawa halkan isugu nimid aad iyo aad baanu ku soo dhaweynaynaa walaalahayna meesha yimid annagoo ka xun walaalkeen ah sheekha caalimka ahaa inagoo walaalkeenna u ducaynayna ilaahay subxaana watacaala inuu shahiid ka dhigo ilaahay subxaana watacaala walaalkeen ha u naxariisto inagana ha noogu dambi dhaafo sheekh axmed doctor axmed xaaji cabdiraxmaan wuxuu dhashay 1958 wuxuu ku dhashay gaalkacyo waxa uu qur-aanka ku bartay halkaas wuxuuna ku biiray 66kii madrasadii carabiga ahayd ee magaalada ka jirtay dabeedna dugsiga dhexe iyo dugsiga sare wuxuu ku dhammaystay xamar oo wuxuu ka baxay jamaal cabdinaasir madrasadii carabiga ahayd kabacdina wuxuu ku biiray ciidanka oo waxaa loo qaaday tababar ah dhinaca ciraaq halkaas uu ka soo baxay kuliyat alxarbiya 4 sano uu ku soo dhammaystay waxa uu ku soo noqday isagoo daabid ah 80kii waqtigaasoo uu isaga tegay oo uu ku biiray jaamacad umulqura jaamacad umulqura wuxuu ka qaatay darajada ugu hooseysa jaamacadda oo la yiraahdo baccalaureatka waxa uuna ku baasay mumtaaz darajada mumtaaz dabeedna wuxuu qaatay magister iyadana wuxuu ku baasay darajada mumtaaz wuxuu dabeedna loo ogolaaday in uu ku qaato doctoraad inuu qaato iyadana wuxuu ku baasay mumtaaz iyo in la daabaco risaaladiisii uu doctoraadka ku qaatay marka waxa uu baccalaureate ka dhameeyay 85kii 29kii magister buu dhameeyay 99kana wuxuu qaatay doctoraa waxauna waligi ahaabaa la yiri galaaska midka ugu horeeya min bidaayatihi ilaa nihaayatihi nuqdada soo socota ama qodobka soo socda wuxuu ku saabsan yahay bal in culimadu ay wax iska yiraahdaan yaa ka dambeeya dilalkan qorshaysan iqtiyaalaadka munadamka ee wadankeena ka dhacaya cunfiga wadankeena ka dhacaya waxaan ku jirin mu'amaraad inay jiraan doonaya inuusan wadankan uusan degin laga yaabo mu'amaraadkaas inay khaarij yihiin laakiin laga yaabo iyagoo khaariji haddana dad daakhiliya in ay ku shaqaysanayaan aan qasdin iyagoo og ama iyagoo aan ogeyn kuwa wax fulinaya waxa ka ratimaya maaragtay camalka ay sameynayaan waxaan hadda u furayaa culimada in ay wax iska yiraahdaan insha Allah taala qof gacan taagtaan siinaya yaa ka dameeyay dilalkan sheekh axmed ugu dameeyay ay culimo leedahay cid walba leedahay taas marka waxaan ka leeyahay sida walaalkay uu taabtay waxaa ka dameeya cadow wadankan uu leeyahay iyo diinta iyo dalka uu leeyahay cid walba ha adeegsadeen laakiin shaki waxaa nagaga jirin dadkii fuliyey dhalinyarada loo soo diray inay dad Soomaali yihiin muslimiin أنا waxaan oran lahaa ciidan meesha isku haysa ee isugu dhiibay ee muslimiinta ah inaynu islaax dhexdooda gallo oo hadaynu cidii dawladaha muslimiinta aynu la kaashanayna ciidan leh ee suldad leh aynu marka la kaashano markaynu wax dhexdhexaadinayno aynu ahaano dhexdhexaad ahaano adigoo arka marmarka qaar xaqa marka Allahumma ighfir li doctor Ahmed Haji Abdurrahman warfa darajatahu fil mahdiyin faamilkiisina ilaahay khalaf khayr badan oo weyn maaragtay maaragtay Salama rasuulka sallallahu alayhi wasallam markii ay ka sabri weyday maaragtay Abu Salama rasuulku wuxuu yiri waxaad ku ducaysataa ducadaas maaragtay Allahu makhluf fi musibati macnaha musiibada ilaahu khalaf iga sii marka faamilkii iyo ummadda Soomaaliyeed iyo dadka dacwada iyo dadka cilmiga iyo khayrka iyo sunnada jecel oo dhan ducadaas oo kale ayaan insha Allah taala inaan ku ducaysana ay tahay halkan uga tacsiideynaya sheekha دكتور شيخ أحمد حاج عبد الرحمن oo ku geeriyooday magaalada Boosaaso runtii gacan ka xaq daran ay dishay sidaan u qabana dee ummadina ay ku indhabeeshay isaguna uu nasiibkiisii oo wanaagsan ka qaaday waayo haddii gacan ka xaq daran ay ku disho nasiibkaagu aad buu wanaagsan sida ay runtu tahay markhaatigii faraha badnaa ee u dhacayay dee ummaddu u furaysana runtii waa wax farxad gelinaya qofkii islaama inuu ninkaasi meel wanaagsan ku dambaynayo geeridu waa xaq oo waynu wada dhimanaynaa laakiin runtii wixii dee uu ina tarayay
iyo baahidii aynu inagu u qabnay un baynu la calaacalaynaaye isagu halka uu ku jihaysan yahay runtii waa meel looga markhaati kacay. doctorka allah yarxam socoye raggii la midka ahaa ma u istaagnaa oo safkooda ma noqonnaa mise waxaan idhahnaa yaan laga hadlin yaan laga sheegin nin walba carruurtiisa iyo ma arkaysaa ha kursado iyo islaamihiisa arrintu waa soo dhaafta carruur iyo islaamahan masaajid ku haysanaa iyo hadal yaan la gelin waa soo dhaafta maanta because waxay maraysaa xabad baa la isla dul taagan yahay anu marka waxaan leeyahay nin yaan la kala gabanin maanta wixii xaqdarro ku socda ha la bidhaamiyo wixii qulubu ku jira ha la bidhaamiyo wixii ma arkaysaa xadgudbay ha la bidhaamiyo wixii diinta ka khaldan yihiin ha la bidhaamiyo qof xataa haddii culimmadu khaldanta ha la qabto iyagoo ha la yihahdo culimu waad khaldantihiin jidkaa mara arrintan waxaan weeye taxsi ayaan rajaynayaa inay tahay waxaan leeyahay inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun walaalkeen axmed sheekh doctor axmed xaaji cabdiraxmaan waxaan leenahay horta marka hore waxaan leeyahay ilaahay ha u naxariisto gacan ka gardaran baa dishay. qodobka koowaad waxaanu tacsi u diraynaa eheladii aqaaribtii ardaydii iyo ummadda soomaaliyeed dhammaanteed ee uu ka geeriyooday sheekhu waxaanu marka labaad cambaaraynaynaa falkaas foosha xun ee lagu ugaarsanayo laguna laynayo culummada iyo waxgaradka iyo dadka waxgalka ah iyo odayaasha dhaqanka ee ummadda soomaaliyeed ay leedahay oo dhaqanku uu ahaan jiray in ay yihiin birmagaydo aan la dilin. qodobka saddexaad waxaanu shacabka soomaaliyeed iyo maamulada ka dhisan meelaha falalka noocaas oo keliya ay ka dhacayaan aanu u soo jeedinaynaa in ay ilaaliyaan dhowraan kuna hagoogtaan culummadooda iyo dadka waxgaradka ah ee birmageydada ah dhammaantood. marka afraad in dadka magaca culummo sita ee soo saaraya fatwooyinka lagu bannaynayo dhiigga shacabka soomaaliyeed waxgaradkiisa iyo culummadiisa iyo dadka waxgalka oo dhan ay ilaahay uga toobad keenaan subxaana wa tacaala ogaadaanna in ay iyagu qaadayaan oo ay xambaarayaan mas-uuliyadda dhiigga cid walba oo fatwadooda lagu dilo hadda iyo intii ka dambaysaba. qodobka shanaad in madaxda dhaqanka soomaaliyeed ay u istaagaan dowrkooda kaga aadan islaaxinta iyo dhexdhexaadinta dadka ku dagaalamaya dalka soomaaliyeed islamarkaana ay joojiyaan dhiigga daadanaya intii ay awoodi karaan. marka lixaad waxaanu u soo jeedinaynaa qurbajoogta soomaaliyeed gaar ahaan dadka ku dhaqan dalkan UK inay u istaagaan sidii ay wax uga qaban lahaayeen dhibaatada raagtay ee dalka soomaaliya ka taagan. marka toddobaad waxaan ilaahay subxaana wa tacaala ka baryaynaa inuu fadeexeeyo ceebeeyo bannaankana uu soo dhigo kuwa ummadda soomaaliyeed waxgaradkeeda laynaya oo ugu dambeeyey sheekh doctor axmed xaaji cabdiraxmaan. marka sideedaad waxaanu ummadda soomaaliyeed ugu baaqaynaa inay dhibaatooyinka dhexdeeda ah iyadu xalliso meeshana laga saaro faragelinta shisheeye gaar ahaan wadamada deriska ah ee soomaaliya deriska la ah oo faragelintoodu ay dhibaato badan wadanka ku hayso ama ka abuurto. waxaanu ilaahay subxaana wa tacaala ka baryaynaa ummadda soomaaliyeed inuu dhibaatada ka qaado rabbina subxaanahu wa tacaala uu xalliyo mashaakilkeeda. hada wabillahi towfiiq wabaarak allahu fiikum wajazakum allahu khayran wasala allahu calaa muxamed. tartankii ciyaaraha gobolada somalilan oo muddooyinkan dambe ka socday magaalada burco ayaa maanta waxaa ku kulmay gobolada sanaag iyo maroodi jeex ciyaartaas oo ka qayb ah wareegga saddexaad ee ciyaaraha gobolada somalilan. mar kale wariye maxamed cawad maxamed ayaa umuurtan ka baarandegaya. tartankii ciyaaraha gobolada somalilan oo weli kasii socda magaalada burco islamarkaana haatani ay qaar ka tirsan goboladu u gudbeen wareegga afraad ee tartankani ayaa galabta garoonka alamse stadium ee magaalada burco ay ku kulmeen gobolada sanaag iyo maroodi jeex oo ka wada tirsan gruubka koowaad islamarkaasna ay ciyaartan ahayd tii ugu dambeysay ay ugu gudbi lahaayeen wareegga afraad ciddii guulaysataa. ciyaartani ayaa iyadu ahayd mid aad u xiiso badan islamarkaasna ay labada gobolba ciyaar aad u wanaagsan soo bandhigeen iyadoo xulka gobolka sanaag oo natiijadiisu ay aad u fogeyd uu dadaalo badan muujiyey balse aanay u suurtagelin inuu galabta u gudbo wareegga afraad ee tartanka ciyaaraha gobolada somalilan. ciyaartani ayaa iyadu qaybtii hore kusoo gabagabowday barbardhac gool la-aan ah balse markii la isugu soo laabtay qaybtii labaad ee ciyaartaasi ayaa xulka gobolka sanaag oo isagu ku ciyaarayay 10 ciyaartoy kadib markii garsooraha ciyaartaasi uu mid ka mid ah ciyaartooyada gobolka sanaag ugu taagay
kaadhka guduudan ayaa iyagu keenay daqiiqadii 16aad ee qaybtii dambe ee ciyaartaasi gool uu dhaliyay laacibka uga ciyaaraya khadka dhexe ee lagu magacaabo Geedi isla markaana u sitay lambarka 6 taasi oo kor u kicisay yididiiladii ay gobolka Sanaag ka qabeen inay u gudbaan wareegga afraad ee tartanka ciyaaraha gobolada Somaliland. waxaana xulka gobolka Sanaag ay muujiyeen dadaalo xoogan isla markaasna waxa ay dhowr jeer sigeen in xulka gobolka Maroodijeex ay ka dhaliyaan gool kale taasi oo haddii ay Sanaag dhalin lahayd ay maanta ugu gudbi lahaayeen wareegga afraad tartanka ciyaaraha gobolada Somaliland balse dhamaadkii ciyaartaasi markii uu ka harsanaa 1 daqiiqo oo kaliya ayaa xulka gobolka Maroodijeex laacibkooda uga ciyaara lambarka 7 isla markaana lagu magacaabo Sharmaarke uu u dhaliyay goolkii barbardhaca ee gobolka Maroodijeex taasi oo sii fogeysay yididiiladii iyo natiijadii ay ka qabeen xulka gobolka Sanaag inay u baxaan wareegga afraad ee tartanka ciyaaraha gobolada Somaliland waxaana maanta si rasmi ah u soo baxay gobolka Maroodijeex oo isagu ilaa haatan noqonaya gobolka labaad ee u gudbay tartanka ciyaaraha gobolada Somaliland isagoo hore ugu gudbay gobolka Hawd oo isaguna ka tirsanaa gruupka koowaad ee tartanka ciyaaraha gobolada Somaliland waxaanu gruupka koowaad uu noqday mid ay ka baxeen gobolada Hawd iyo Maroodijeex halka Togdheer iyo Sanaagna ay noqdeen gobolada ka hadhay tartankan ciyaaraha gobolada Somaliland markii ciyaartaasi soo gabagabowday ayaa tababaraha gobolka Maroodijeex iyo qaar ka tirsan ciyaaryahanadaas ay cabireen dareenkooda ku aadan ciyaartani ay maanta barbardhac la galeen gobolka Sanaag dirina insha Allah diyaarno in afarta waxa weeye kulay ciyaartaas aan waa u diyaargano ciyaarta afarta oo rajayna inaan kulay ciyaar wanaagsan muujino guul ka keenno insha Allah waana waxa weeye Ilaahay baan ka baryaynaa wax Ilaahay guushana siiyo waan dadaalna insha Allah والله aad ciyaartii wanaagsaneyd kinta waxa ciyaartii koobaad ee aan igu adkaatay ciyaartii aan ciyaaro oo dhan marka ciyaartii waxay ahayd wallahi ciyaar aad iyo aad u wanaagsan ciyaar fiican oo aad u adag bahay runtii waxaan ku dhamaatay natiijo fiican oo barbardhaca inkastoo aanu qalanayno badino gool badan oo sax oo dhashay garsoorku diiday laakiin nasiib wanaag saa ku dhamaatay waxaan ku qanacsanahay maadaama aanu 5 dhibcood aan gaadhnay in gruupka ka soo baxay 5 dhibcood dhinaca kalena tartanka orodada oo wali isaguna si habsami ah uga barbar socda tartanka ciyaaraha gobolada Somaliland ayaa gobolka Togdheer uu maanta ku guuleystay ciyaaraha qori isku ayaa maanta gobolka Togdheer uu ku guuleystay orodada qori isku dhiibka ugu dambeyntiina waxa si weyn loo wada sugi doonaa natiijada ka soo bixi doonta gruupka labaad ee tartanka ciyaaraha gobolada Somaliland oo maalinta bari ay ku kulmi doonaan gobolada Saaxil iyo Sool taasoo ay si weyn natiijadu isku xidhan tahay marka la eego ku dhawaanshaha goboladaasi ee dhanka dhibcaha maxamed Caawad maxamed telefishinka caalamiga ee Somali Channel Boro hadduu eebba idmana tan iyo intaynu dib ugu kulmi doono warkan iyo mid lamida waa anigoo Cabdilaahi Xuseen Maariya waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh